walaalayaal horta mid baan ku bishaareeyaa wadahadaladii commissionka ku saabsaneed muran ka taagan aniguna ka odayeynay iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore yaashii hore may dhammaanin madaxweynena ergadii waa diidin waxaan ku wareejinay dee niman dadkii waddankiina asadka ugu badnaa lahaa ee baahmijariga ah iyo culamadiisii baan ku wareejinay waxaan jecelnay insha allahu tacaala anoo ku rajo weyn aan rajo weyn ka qabin madaxweyne muuse inuu wax yeeli doono inuu hadda dowrkan insha allahu tacaala wax yeeli doono maanta waxaan idiin sheegayaa commissionka iyo madaxweynaha biixi kursigiisu way isku xidhan yihiin hadday doorasha dhici weydo waxaan ka tashan matalaa la gaarayaa hoggaanka laga gaaraya shacba reer somaliland laana waxa weeye maanta dalkeenu dowlad ka shaqeynaysa ma jirto waa stagnant wasaarad qolo shaqeynaysa ma jirto waxaa dalkeeda uga dhigay madaxweyne muuse dukaan uu lahaa oo xaqdara kaga maqnaa 26 sannadood uu soo ceshaday uu leeyahay anaa leh taasoo ka dhigay taasna wax suurta gelinaysa oo shacba reer somaliland yeeli maaha marka waxaan leenahay insha allahu tacala ilah waxaan ka barayna inuu ilaahay caqliga siiyo uu danta dalka eego maanta dalkeen niyaddii ummaddu niyad buu ku nooshahay niyad jab baa ku dhacay dalkeeni niyad jab baa ku dhacay waa la sideed hoblen sameynu karlay ummaddu way kala tagtay labadii waxaan aan ku faani jirnay doorasho iyo nabadgelya khalkhal bay ku jirtaa way laga arkay jabhadaa samaysmay doorashada hadalkeedaba iyo haabkeedaba madaxweyne muuse maskaxiisa kuma jirto waddanka maanta institution qura oo shaqeynaya ma jirto baarlamaan ma shaqeynayo oo ogtihiin goortii ma jirto oo dhaxalbeed gashay dowlada hoose ma jirto oo aragtaa magaaladiisa u muuqantihiin cashuur baanu bixinaa waxay naga soo noqdaa ma jiro madaxweynihii uu hagaaji lahaa in reforma sameeyo waa mujaahid dhowr xabadoodaa ku dhacay intaasuu experience leeyahay waxaa tala kaga soo hadhay madax adeeg talo kale oo madaxaan ku jirta oo madaxaya ma jirto intaa 2 sanadood baan u haddaan beriyey madaxaan ka dhukaday doorasha noo socoto aabahay kama dhunkan way iga dhamaatay aniga inaan nin qayrkay ah oo aan ixtiraamnay madaxweyne ka dhignay endorse garaynay la shaqaynay intaa inka badan bariyaa marka bariyay shacabka reer Soomaaliya ma bariyo waxaan ka codsanayaa dadku wada leeyahay mustaqbalku weeye 170 dhalinyaro weeye dadkeenu inaynu one voice atiraahaan no ma ogolaanino doorasho la'aan ma ogolaanino dictatorship dalkan kuma socon qofka doonaan xidhaya sharciga waxaan jecelay baa sharciya waxaan doonayna sharci maaha la aqbali maayo waxaan leenahay waa dalkan haddii aynu hadli weyno aqabiil iska dee weyno dalku inaga burburaya meel loo ciirsadaa ma jirto waxaan leeyahay saleebaan guddoomiye saleebaan waxaan kaa codsanaya maanta ninkaa da-weyne ma jirto bulshadeen xilka haya waxaan kaa codsanayaa in timeline kale soo sameeyay aan la dhaafin timeline ka soo dhaafin ayaan kaa codsanaya arrintan commissionkana waxaan leenahay commissionka anagu uma diidanin shaksi ahaan uma diidanin qofka uma diidana qabiil ahaan dhalasho dadku waa family reer Soomaaliya waa family maha khayr maaha Somaliland waa family ilaahay mahdi weey meel wada degan isku dhaqana abtiyo isku xilba isku waxaan diidnaa oo sharci in la jabiyo sharcigii fawsi celiyay
وكعلي مدحوين موسى كاو مالنا أبلي كله وحكلون خربنا مجرد